waxbaa ka sokeeya cabsi kaamiradanba anigu hadda ka baqaa markaan wejigiisa arko labada telefoonba asaa qabanayo laba telefoon ay haysataa mid oo ay ku isticmaasho Facebook iyo mid local ah haddii la soo waco fiskana amar ay ka qaadanay ma qaban karaa please telefoonkan ay dhahay ka warram idink cunug xuno jamiisle oo hoos u bax ah oo saa aragteen u eg oo sixiroola ah haddii farxii fiska ka warran ay telefoonkayga ma qaban karaa ay leedahay ka warrama bawarkaas muxuu yahay bawarkaas marka waxa waaye fiska insha Allah ilaahay wandhay waa ka soo furfuraa ayaduna sida qof kasta oo farxiye fiska shalay ma dhalanay wajigeeda yaqaanayna ama yaqaanay farxiye fiskana indhaheeda bisa fiiriyo farxiye fiska markay la soo galo ma aragtay TikTok iyo Facebook iyo markuu meelaha wadwado farxiye wajigeeda bis fiiriya indhaheeda bis fiiriya asagana wajigiisa si fiican u fiiriya wajigiisa caad baa ka sokeeya caad waxbaa ka sokeeya cunuga wajigiisa gabadhayda baa la yiri way xanuunsan tahay gabadhaydu ma xanuunsanaa Facebook iyo page beenana waa nala ka samaystay oo leeyahay asagoo waji loo xale waji alwaax waaxid ayaan ka arkay Facebook ma ogta marka muuqaalkaas aad ciil iga hayay hala baafiin gabadhayda xanuunsan tahay marka xukumi jiraan dadka Facebookyada leh farxiya xanuunsan malihin anagu bijijka لو ناكتي دنبيغيدا دوشتا iga saariyana anaguna ma lihin waxbaa ka sokeeya cabsi kaamiradanba anigu hadda ka baqaa markaan wejigiisa arko ayada soo ma ahan inay taagan tahay qaadan tahay waa u jeedin oo maqan tahay marka waxa waaye sixir quraana ka adag asaga soo ma ahan wuxuu geystay asaa ka naasnaasayano oo raba fiska inuu ka hadlo qof kasta oo raba inuu farxiyo fiska ka hadlo walaalayaal idinkoon farxiyo fiska habaarina idinkoon cudur xun u saadina runta ka hadla farxiyo waa taagan tahay waa sixran tahay cunugu geedaynta uu yaqaanaa marka wax jira inaad ka hadashaan Soomaaliya waxa ka jeceshihiin waxaan jirin iyo habaar iyo been abuur inaad sheegtaan been abuurka iyo habaarka iyo cudurrada xunxun iyo oo been ah inaad sheegtaan aa ka jeceshihiin inaa waxa jira ka hadashaan war hadday ma aragtay abtayd aad u haysaan oo aragtaan inaad fiska ka hadashaan anaa hadda idiin sheegayo cid aan iga dambaysaa weydiinina dadkii ayada ka horreeyay ee uu taagay oo ma aragtay ilaahay ka soo badbaadiya aniga ila soo xiriireen ayaan hore anigoo iskaga aamusay because familkayga igu dhahan intaas ka badan farxiyo ma aragtay faraha ka qaad walaashaa waaye si kastoo wax u jiraan si kastoo wax loogu sameeyay adiga waxba kama qaban kartid iskaga aamusaa laygu dhahay laakiin de qofku markuu walaalkaayo jirkaagiyo dhiigu biyo ma ahan anaa realityga og I know realityga marka akhbaarta ninkaas aniga ayadoo tafatiran oo dhammaystiran farta layga saaray meeshaan ku yaabayaan fadhiyaa aniga waxa sixirka la dhaho horta ilaahan ka magan galnay waxna sixray iyo waxna taaganay ilaahan ka magan galnay qof walbo adkaar la'aan isku bixin haddana waa idiin sheegaya qof bili aadan ah isku aaminina dadka aad la enjoy gareynaysaan iyo dadka baranaysaan ka fiirsada waxaan idiin sheegayaa Soomaalida farxiyo fiska la yaaban ama ku mashquulsan akhbaarteeda aniga iyo familkeedaba waa ka dheregsanahay waxa jiro waa ognahay ninkaas inuu ma aragtay geedaynta yaqaano adeegtay waa ognahay marka de waa inta uu haysan karo oo ma aragtay uu farxiyo ay u taagnaan karto waa iska waqti yar waay dadku ayada ka horreeyay uu taagayba ilaahay waa ka furfuray marka wanda ilaahay waa ka soo furfurayaa inay arrintaas jirtana cid aan weydiinayo male sababta oo ah telefoonadeedii gabadhaas telefoonadeeda xataa gacantu ku haystaa telefoon asaga ansar uu dhaho ma ee telefoon kale farxiyo ma ansari karto asagaaba qabanayo horta ayada ma ansari kartaba telefoonkeeda asaga ansarayo asaga qabanayo fiska hadda wacdo asaga ka qabanayo labada telefoonba asaga qabanayo laba telefoon ay haysataa mid oo ay ku isticmaasho Facebook iyo mid local ah labadaba asaga qabanayo haddii la soo waco fiskana amar ay ka qaadanay ma qaban karaa please telefoonkan ay dhahay ka warram idink cunug xuno jamiisle oo hoos u bax ah oo saa aragteen u eg oo sixiroola ah haddii farxiyo fiska ka warran ay telefoonkayga ma qaban karaa ay leedahay ka warrama bawarkaas muxuu yahay bawarkaas marka waxa waaye fiska insha Allah ilaahay wandhay waa ka soo furfuraa ayaduna sida qof kasta oo farxiyo fiska shalay ma dhalanay wajigeeda yaqaanayna ama yaqaanay farxiyo fiskana indhaheeda bisa fiiriyo farxiyo fiska markay la soo galo ma aragtay TikTok iyo Facebook iyo markuu meelaha wadwado
farxiyo wejigeeda bis fiiriya indhaheeda bis fiiriya asagana wejigiisa si fiican u fiiriya wejigiisa caad baa ka sokeeya caad waxbaa ka sokeeya cunuga wejigiisa waxbaa ka sokeeya cabsi cabsi kaamiradanba anigu hadda ka baqaa markaan wejigiisa arko ayada soo ma ahan inay taagan tahay qaadan tahay waa ujeediin oy maqan tahay marka waxaa waaye sixir quraana ka adag asaga soo ma ahan wuxuu geystay asaa ka naasnaasayano he will pay the price gabar reer dhaleen oo dad dhaleen intaad taagto oo aad ku soo xirato guri oo teleefoonadeeda ka qaadato asaas ula dhaqanto oo waa qabaa aad tiraahid kabacdina oo arki doontaa tafaafulow aan arkaayo oo farxiyo la soo duubay oo uu ag fadhiyo oo hadlaayo marka ilaa ninkan wariyaha ah akhbaartiisaaba ka horreysayba oo dadkan galay oo been ka sheegayo cudur ay qabaan iyo balaayo iyo wax ilaahay laga magan galo marka waxaan u sheegayaa qofka hallo snapchadow wallaahi bilaahi tallaahi soomaali ma aragti soomaali koodi joogay tuulo koodi joogay magaalo koodi joogay qurbaha waaba isla wada waasheenbano saaqadii meel qaldan bay gasho waxaan leeyahay cunuga wejiga loo xalahaayo waxaan arkayaa dhahaayo gabadhayda waa xanuunsan tahay baa la yiri way fiican tahay gabadhaydu meelna ma xanuunayso marka aniga clipkan Facebook ku arkay ee iska soo duubeen asaga iyo farxiyo laakiin ileenay waxay u jawaaboyaan nin guriceel jooga oo wariye iska dhigdhigo oo dhihi jiray ratiga hashu ratiga way dhunkanaysaa iyo sagaara aadaantay iyo ninka qaabka daranoo dhididsan 24/7 oo wasaqdu ka muuqato ciyaal suuqa oo horreey baadiyaha ah ninkaasaa been abuur ka sameeyey ilaahay amarkiis kilibka ayaga ay iska soo duubeen oo Facebook ay soo dhigeen uu dhahayo gabadhayda baa la yiri way xanuunsan tahay gabadhayda baa la yiri way xanuunsan tahay gabadhaydu ma xanuunsana Facebook iyo page beenana waa nala ka samaystay oo leeyahay asagoo weji loo xale weji alwaax waaxid ayaan ka arkay Facebook ma ogta marka muuqaalkaas ciil iga hayay assalaamu calaykum aadan idin salaamay soomaali weyn meelba joogtaan waxoogaa teleefanadiiga jaamgaroowo hala baafiyin gabadhayda xanuunsan tahay marka waxay kama jiraan dadka facebookyada leh farxiyaha xanuunsan malihin anagu bejijka waxaa kaloo aanan lahayn channelka farxiya fiska ay ku qoran tahay ee beenta ama cayda lasoo dhigo malihin qof walbo caqli leh wuu garan karaa qof mas-uuli waxa uu ku hadlo channelkan kale beejkan kale ee lasoo dhigo lahu naagteeda dembigeeda dusha iga saariyana anaguna malihin waa dad wada waalan gabadheeduna caafimaad qabtaa waayo salaamo dhammaanood soomaali meel kasta aad joogtiin horena waa u aragteen asoo aniga isa kala dhigaya dhahay ninkayga isbitaal ku jiraa loo soo duceeyo marka Soomaaliya hadda aqli leediin oo maskax leediin waa dareemi kartiin waana fahmi kartiin ma fahamto qof walba maalin ay dhimanaysaa qof walba maalina nafta laga qaadaya aniga hore la soo dhahay way dhimatay marka inay ku qaraabanayaan dadkaas waa iska fahmi kartiin qof walba maalin uu leeyahay uu dhimanaya iyagana waxaan leenahay waxba si walba u hadashaan si walba taabana xanuunsantihiin iyo si walba wax u sheegtaan كل بيران صوتو بنا أمبا إذن خوف فعلا أدبر إذن سلامنا